midnimo waa dharaare haddii dhalanteed bulshada colaad lagu dhiiran jiray dhibkaas wuu naga haro Soomaaliya inay dhaqaqdo nabada dhaaftee dhaqaqday ma dhegtee Soomaaliya oo mar ahaan jirta mid ka mid ah wadamada Afrika ee ugu horumarsan xoogga ciidamada ayaa haatan mar kale hiigsanaysa dariiqa heer wanaagsan oo lagu gaarsiinayo tayada iyo tirada ciidamada dalkay aalankay ma baylayayo amarkii madiidayna ma diidayo dalkay aalankay ma baylayayo amarkii madiidayna ma diidayo dhowrkii sano ee ugu dambeeyay kumanaan dhalinyaro ah oo ka baxay jaamacadaha dalka iyo dugsiyada sare ayaa ku biiraya qaybaha ciidamada dad waxaynu nahay darsi loo bilaabo dadka garabka saaro sida booliska xoogga dalka iyo asluubta Soomaaliyeed waana fariin cadeynaysa dadka aqoonta leh oo ciidamada ku biiraya in si xowli ah ay ugu socoto dadaalka dib u dhiska ciidanka hadafkeenu wuxuu yahay anagoon ka weecan nidaamka daacadnimada waajibaadka iyo sharafta wadanka isla markaasina ah wadani dhab ah in shacabkeena aan gaarsiino nabad iyo horumar maamulo arlaaday horumarka deersiyo mas'uul daacad nagado kuwa dibadda jira kuwa tahriibay waxaan kula talin lahaa inay dadaalaan dadkooda wax ay u qabtaan halkaan ay imaadaan dhiigooda ay huraan naftooda ay huraan si ay dalkooda dib ugu soo celiyaan burburkii ku dhacay iyo wixii ka baaba'ay inay baabiyaan si dalkooda dib ay ugu soo celiyaan sidii uu ahaan jiray wiligiis Soomaali wiligeed awood ay lahayd ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed awood u lahaa haddana wuu lahaan doonaa annagana waxaa haynaa wadadii awoodda ciidanka Soomaaliyeed aan dib ugu soo celin lahayn dhuga ciidamada sida loo dhisay la isugu dhafo dhulka daaficii dhaar ugu maree Soomaaliya inay dhaqaaqdo hawada dhaaftee dhaqaaqday ma dhegtee idaacadda codka ciidamada qalabka sida SNA radio